dowladda Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in ciidankeedu ay adeegsadeen diyaaradaha uusan duuliyuhu saarnayn ee uu ka iibiyay Turkiga, arrintaas oo xukuumadda Ankara ay u muuqatay inay qarinaysay. warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times la yiraahdo kana soo baxa dalka Britain ayaa lagu sheegay in militariga Ukraine ay Ruushka isaga caabiyeen diyaaradaha lagu magacaabo Bayraktar oo Turkigu ay ka heleen iyaga oo mahadcelin weyn u jeediyay dowladdaasi. ciidamada Ukraine ayaa isticmaalka diyaaradahan ka helay waxa ayna gaareen heer ay samaystaan hees ay ku sheegeen sida ay uga awood yeesheen in ay jabiyaan askarta Raashiya ee duulaanka soo qaaday, sida uu wargeysku ku sheegay warbixintiisa. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa boggeeda Twitter-ka waxa ay ku shaacisay sawirada xayawaano ay ugu magac dartay diyaaradaha Turkiga uu sameeyay ee la yiraahdo Bayraktar, iyaga oo astaan uga dhigay dabaaldega ay u sameynayaan sida ay diyaaradahaasi uga caawiyeen in ay burburiyaan taangiyada Raashiya iyo gantaalada rakiban. hadcelinta Ukraine waxay lid ku tahay isku dayga uu Turkigu ku doonayay in uu uga gaabsado arrinta la xiriidha in uu Kiev ka iibiyay diyaaradihiisa casriga ah ee uusan duuliyuhu saarnayn. xukuumadda Ankara ayaa u muuqatay inay ka baqayso in ay ka careysiiso Moscow, halka ay iska dhigaysay in doorkeedu uu yahay wadan dhexdhexaadka dagaalka ka soconaya Ukraine. bankii bishan Maaj, Turkigu waxa uu martigeliyay wasiiradda arrimaha dibadda ee Raashiya iyo Ukraine, kuwaas oo ka qayb galay shirka heerka sare ee diblomaasiyadeed ee wada hadalka ku yeesheen labada dhinac tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka Ukraine. Ruushka ayaa Ukraine weerar ku qaaday 24kii bishii aynu ka soo gudubnay ee February, walina waxaa socda iska caabinta ciidamada Ukraine oo difaacaya magaalooyinka ay militariga Putin isku dayaan inay la wareegaan. warbixinta uu soo saaray Financial Times waxaa lagu xusay bayaan uu soo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga oo sheegay in diyaaradaha ay Ukraine isticmaalayso aysan ahayn kuwa uu Turkigu ka caawiyay, balse ay yihiin kuwa laga iibsaday shirkad Turki ah. taxadarka Turkiga ayaa muujinaya xiriirka iyo isbahaysiga aan la fahmi karin ee ka dhaxeeya madaxweynayaasha Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Vladimir Putin. Ankara ayaa horey u soo iibsatay gantaalada casriga ah ee Raashiya, tallaabadaas oo ka careysiisay xulafadooda ay iskula jiraan isbahaysiga reer galbeedka ee NATO. Erdogan ayaa dhalilay dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, balse waxa uu ka soo horjeestay cunaqabateennada ka dhanka ah Moscow maadaama Turkigu uu ku tiirsan yahay qamadiga Ruushka iyo dalxiisayaasha uga yimaada wadankaasi. intaasi waxaa sii dheer in Turkigu uu tamartiisa korontada inteeda badan uu ka keensado dhinaca Raashiya. ka qaybgalka dagaalka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ah mid sii kordhaysa oo muhiimad gaar ah u leh iska hor imaadida adduunka oo dhan. diyaaradaha droniska Bayraktar ee Turkiga ayaa waayadii dambe caan ahaa, waxaana ay qayb ka ahaayeen dagaalo badan oo ka dhacay meelo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Ethiopia. iibinta Bayraktar ayaa dhaqaalaha u soo xarooda militariga dalka Turkiga ku kordhisay 40%, waxaana hadda maraya lacag dhan 3.22 bilyan oo dollar. diyaaradan Bayraktar TB2 ayaa loogu talagalay fulinta weerarada. Bayraktar TB2 oo culayskeedu yahay 150 kilogram ayaa ka howlgeli karta masaafo dhan ilaa 300 kilomitir. sida ay sheegtay shirkadda soo saartay diyaaradan droniska ah, waxa uu dhererkeedu yahay 12 mitir halka uu joogeedu yahay 2.2 mitir, waxayna leeyihiin awood ilaa 300 litir oo shidaal ah. diyaaradahan waxay qaadi karaan 4 gantaal oo waaweyn, waxaana la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay furo u ahaayeen guushii ay Azerbaijan ka gaadhay dagaalkii ay la gashay Armenia. diyaaradahan ayaa waxa uu sidoo kale Turkigu u adeegsaday dagaalada Suuriya iyo Liibiya. Ruushka ayaa isugu yeeray shir degdeg ah oo gaar ah oo yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Jimcihii si markaasi uu uga hadlo heshiiska ah in Ukraine ay qorsheynayso inay samaysato hubka kiimikada. tani waxaa beeniyay Ukraine iyo Mareykanka oo ku tilmaamay mid been abuur ah ayna tahay sheegasho loogu talagalay in marmarsiyo looga dhigto suurtagalnimada in Ruushku uu isticmaalo hubka kiimikada magaalooyinka Ukraine. Ukraine waxay leedahay shaybaaro sharci ah halkaas oo ay dawladdu sheegtay in saynis yahanadu ay uga shaqeeyaan ka ilaalinta dadka cudurrada sida COVID-19. marka la eego in Ukraine ay hadda ku jirto xaalad dagaal, hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka codsatay Ukraine in ay burburiso wax kasta oo cudursidaha khatarta ah ee ku jira shaybaarada. haddaba muxuu yahay hubka kiimikada? sidee ayuu uga duwan yahay hubka nuclearka ee wax gumaada?
hubka kiimikadu waa nooc kasta oo rasaas oo xambaarsan sunta ama walxaha kiimikada ee weerara ama wax u dhima nidaamka iyo unugyada jirka. waxaa jira noocyo kala duwan oo ah hubka kiimikada sunta sida nooca loo yaqaano phosgene, waxaana ay weeraraan sanbabada iyo habdhiska neefsiga, taasoo keenta in dhibanuhu ay xitaa waxyeelo ka soo gaadho sanbabada. waxaa sidoo kale jira in sunta qaar ay gubto jirka qofka islamarkaana uu indhabeelo, balse waxaa jira qaybo ka mid ah kiimikada oo sababa dhimasho badan. sunta loo yaqaano nerve agents ayaa ah mid dilaa ah, waxaana qofka marka ay ku faafto jirkiisa uu qalqal iyo howlgab ku dhaca fariimaha maskaxda ee unugyada jirka iyo weliba neef mareenada jirka. dhibic yar oo sunta ka mid ah ayaa noqon karta mid sababta dhimasho. in ka yar 0.5 miligram oo sunta nerve agent ayaa tusaale ahaan ku filan in ay disho qof weyn. dhammaan waxaa loogu yeeraa sunta kiimikada waxaa loo isticmaali karaa dagaalka madaafiicda, bambooyinka iyo gantaalaha, laakiin dhammaan waxaa si adag u mamnuucaya heshiiskii hubka kiimikada ee 1997 oo ay saxiixeen inta badan dalalka caalamka uu ku jiro Ruushku. waxaa jirta hay'ad caalami ah oo ilaalisa hubka kiimikada oo saldhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland, waxaana magaceeda loo soo gaabiyaa OPCW. ururka mamnuucida hubka kiimikada ayay shaqadiisu tahay la socodka isticmaalka sharci darrada ah ee hubkan, waxayna isku dayaan in laga hortago faafitaankiisa. waxaa loo adeegsaday dagaalo hore, dagaalkii koobaad ee adduunka, dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq ee 1980 iyo dowladda Suuriya oo la sheegay inay u adeegsatay dagaalyahanadii ka soo horjeeday. Ruushka ayaa sheegay inuu burburiyay keedkii ugu dambeeyay ee hubka kiimikada sanadkii 2017, balse wixii markaasi ka dambeeyay waxaa dhacay ugu yaraan 2 weerar oo kiimika ah oo lagu eedeeyay Moscow. midkii ugu horeeyay wuxuu ahaa weerarkii Salisbury ee bishii Maarso sanadkii 2018, markaasoo sargaal ka goostay loo adeegsaday. sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay Sergey Skripal lagu sameeyay gabadhiisa sunta waxyeelaysa neerfaha ee Novichok la yiraahdo. Ruushku wuu diiday mas'uuliyadda weerarkaasi, laakiin baarayaashu waxay baaritaankooda ku soo gabagabeeyeen in falkan ay fuliyeen 2 sargaal oo ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka ee GRU la yiraahdo, taasoo keentay in 128 basaasiin iyo diblomaasiyiin Ruush ah laga saaro dalal dhowr ah. kadib bishii Agoosto ee sanadkii 2020 hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Russia ee Alexei Navalny ayaa sidoo kale lagu sameeyay sunta Novichok, taasi oo si dirqi ah uga badbaaday dhimasho. haddaba Ruushku ma u isticmaali karaa hubka kiimikada dalka Ukraine? haddii Ruushku uu isticmaalo hubka sida gaaska sunta ee dagaalka, tani waxaa loo arki doonaa in ay tahay mid uu ugu tallaabay khad cas oo ay u badan tahay in ay soo dedejiso baaqiyo ku aadan in reer galbeedku ay qaadaan tallaabo adag. ma jiro wax caddayn ah oo muujinaya in Ruushku uu hubkan u adeegsaday markii uu xulafadiisa ka caawinayay in uu ka adkaado fallaagada Suuriya, balse waxa uu taageero militari oo ballaaran u fidiyay xukuumadda Bashar al-Assad oo lagu eedeeyay in tobanaan weerar oo kiimika ah ku qaaday dadkiisa. xaqiiqdu waxay tahay in haddii aad leedahay dagaal daba dheeraaday halkaas oo militariga weerarka soo qaaday ay isku dayayaan in ay jabiyaan ciidamada difaaca, kadibna nasiib darro hubka kiimikada waa halka dariiq ee kaliya ee guushaasi lagu gaari karo. waana wixii ay dowladda Suuriya ka sameysay magaalada Xalab. dhanka kale hubka biologikada ayaa ka duwan hubka kiimikada. waa weerar loo isticmaalo in lagu qeexo habeynta cudursidaha halista ah sida Ebola. dhibaatadu waxay tahay waxaa jira qaabab kala duwan oo u dhaxeeya ka shaqeynta siyaabaha aad dadkaaga uga ilaalin lahayd cudursidaha waxyeelada leh iyo sidoo kale ka shaqeynta si qarsoodi ah sida loogu isticmaali karo hub ahaan. ugu dambeyntii ciidamada Russia ayaa ku dhawaaday magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, waxayna duqeymo xoogan la beegsadeen goobo shacab ay degan yihiin ayada oo ay xoogeysteen digniinaha ku saabsan musiibo aan la qiyaasi karin oo ka dhacda dalkaasi Ukraine. kadib 17 maalmood markii Moscow ay ka nixisay dunida ayada oo ku duushay Ukraine, qaramada midoobay iyo hay'ado kale ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dambiyo dagaal ay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid tahay Mariupol oo maalmo ku jirta go'doon ay geliyeen ciidamada Putin.
saraakiisha magaalada ayaa jimcihii sheegay in 1500 oo qof lagu dilay 12 maalmood oo magaalada ay ku jirto go'doonka Ruushka. dadka magaalada ayaa isku dayaya in ay ka baxsadaan iyada oo qabow daran uu ka jiro, sidoo kale ay ka go'een biyihii iyo kuleylihii guryaha. cuntada ayaysan markaasi jirin, xaaladda waa mid quus ah ayay yiraahdeen saraakiisha ururka dhaqaatiirta ee xuduud aan lahayn. dhinaca kale ciidamada Ruushka ayaa si tartiib ah u hareereynaya magaalada Kiev iyada oo la taliyaha madaxweynaha Ukraine Mikhailo Podolyak uu ugu yeeray magaalo go'doonsan. waxa uu Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dagaalamaan, isla markaana ay diyaariyaan marinada sahayda iyo dhufaysyo. wuxuuna intaasi ku daray Kiev waa ay taagnaan doontaa ilaa dhamaadka. militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay isku dayayaan in ay burburiyaan difaacada Kiev ee waqooyiga iyo galbeedka, halkaas oo maalmo ay ka wadaan duqeymo aan kala joogsi lahayn. taangiyada Ruushka ayaa sidoo kale magaalada ugu soo siqaya dhanka waqooyi bari. dhinaca kale dagaalyahano shisheeye ayaa ku biiraya dagaalka iyada oo la kala safanaya labada dhinac, waxaana jimcihii Ruushku uu xoojiyay dadaalo uu dagaalka ku keenayo dagaalyahano ka imaanaya dalka Syria. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ay dagaalka ku soo biireen in ka badan 20 milyan. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dagaalka ay ku soo biireen in ka badan 20,000 oo dagaalyahan oo badankooda ka yimid Yurub, halka Moscow ay sheegtay in dagaalyahano Suuriyaan ah ay ku soo biireen dagaalka, kuwa kalena ay diyaar u yihiin in ay haatan yimaadaan.